أبو طلحة نك الله أورنجري وأنصار بوها أم سليم رضي الله عنها وأنس بن مالك هو يدي مؤمنة ومسلمة أيو دمعين وقرصدو مرقاسوها ساوي بدي إنك قرصدان رباي كورن وعيكو تلماد إسلامتي مرقاسو لمي لكن دين بان هستان بل قبضا هذا الكي جوابتي مرقا بيكو تري الدين تيد هاي ستا أفلا تستحي ما تحشونين بيكو تري ما تحشونين دين تيد هاي ستا منك قوريقا عابودا يدقى حل قوري عابودا أيال الدين بان هايستا حشو بيكو تري دين ما هايستي دين أنك هايسنا دين ودين النبي محمد وليمد عليه الصلاة والسلام هذا هو الدين مركاسو كسي جستي وكذب هذا صوح كتري إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره بكتر هذا المعني سوها يا أبا طلحة صنق بكتر قوسا كالي هذا صو إسلامتد إن هذا صو إسلامتد بكتري مهر إيا مرين دمر كرقا وحي حق أقولها هايين كادوني بمايا إسلام نمدا أتصوق الشيء أيان مهر كيجي مرين كيجو قادم بكتري maxaa gabadha agteeda qiimo lahaa bal ii sheega ninka inuu islaamu naar ka badbaado ajiib oo islaam wuxuu yiri ma inta unba ha waxba iga dooni maysid waxba ka dooni maayo islaam bas waayahay Anas radiyallahu anhu oo khaadimkii nabigeena oo iyadana inankeygiya ayay ku tiri hooyo gacanta qabo nabiga u gees sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabiga loo keenay markaasuu nabiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tiri soo celi Anas oo markuu islaamo markay soo celiyay ayay ku tiri hadaba Anas oo hooyada u guuray bay ku tiri yani hooyada maanta laga bilaabo ku ogow bay ku tiri maaragtaanay waa kaas ninka maadaama ballankii buuxiyay ana ballankayga waan buuxiyay waa ninkaygii bay tiri Abu Talha gabadh cajiib ahayd Umu Sulaym يا ريت هوينكeennu ma gabadha ku daydaana dumarkeennu haday horumar doonayaan haday taariikh fiican doonayaan haday ilaahay ridihiisa doonayaan ma haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka Abu Talha caloosh uu la aqal galay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiyo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yiri yaa Umu Sulaym ilmahayga yara baliga waran siduu yahay waxay tiri sidii aad kaga tagtay uu ka xasilooni badan yahay isqabooji bay ku tiri xaaji iska naso safar baad ka timid isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay u casheeyay gogoshiina ay dul yimaadeen wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay arkeen uu barakeeyay ayay ku tiri intay barida u fadhiisisay yaa Aba Talha ay dhageyso su'aal baan ku weydiinay jaarkeena haddaan alaab ka soo caariyeysano oo alaabtoodii subaxda ay nagu yiraahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd ma waan u celin lahayn buu ku yiri marka abay tiri hadaba ilmaheennii yaraa inakuma lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay lahaaba qaatay anigu waa sabre adiguna iska sabiro meydkiisina waa halka ku duudubana ka ciga soo asbay ka tiri taariikhda adduunyada gabdha caynkaas ma soo marin mana soo mari doonaan ogaada ilmaheegii oo saqi oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaalo mara ku duuduuban ayay sariirtan ama firaashkan dushiisana ay ninkeyga ku dul raali gelisay oo yahay Abu Talha maxaa tiri waxay tiri ha walwalin in wala nabara tarbiyad baa la baray iyaka inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta وكل شيء عنده بأجل مصمى نبي عليه الصلاة والسلام وحو صحابتي سكدا دعيي صحابياتك قبلي سوقوه الريان وحو بري وحا إلهي وقادني سقوم بأسكله وحان هيناني سقوم بأنور ديبتي ورمحمن لنا هينكم ملهد ما انت هو يدا كسوب بحذي إنه هو يدي كسوب بحي ولا إسلام با إلى السعودي ولا إنما إلى السعودي ولا قبلها إلى السعودي mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxaya
ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإذا وحيكون الشيء أدقوا أويايا دتكن أكتاد أي فرح سيهين وإليهين ويل بعد شيء مع نبحنا إليهين إلهي أمر قيس أنت الدنيا كنا شهي إلالي ودينت إلالي وصلاة إلالي وأمرك إلهي إلالي